sida ay Forbes shaacisay. Arnault ayaa noqday ninka ugu hodonsan dunida 24 bishii ayna ka soo gudubnay. Ganacsadahan Faransiiska ah ayaa hore u ahaa bilyaneerka ugu hodonsan qaaradda Yurub. Arrinta mucjisada ah ayaa ah in hantidiisu ay ahayd sanadkii hore bishii saddexaad 72 bilyan, maantuna ay tahay 194 bilyan. Waxa uu ka sare maray Jeff Bezos iyo Elon Musk oo ku kala jiray boosaska koowaad iyo labaad. Forbes waxa ay sheegtay inuu muddo 15 bil ah ay hantidiisu ku korodhay lacag 122 bilyan ah. Arnault waa ganacsade Faransiis ah, waana saamilaha ugu weyn ana maamulaha shirkadda LVMH oo ah shirkadda ugu weyn dunida ee soo saarta agabka raaxada ay la isku qurxiyo, taasoo maamusha in ka badan 75 shirkadood oo ka ganacsada waxyaabaha la isku qurxiyo oo ay ugu weyn tahay Christian Dior. Shirkadahaas waxaa ka mid ah Bulgari, Kenzo, Stella, Laura Piano iyo kuwa kale ah kuwa ugu caansan qaaradda Yurub. LVMH waxaa lagu qiimeeyaa ilaa 320 bilyan, waana shirkadda ugu qiimaha sareysa qaaradda Yurub, aana tan ugu weyn ee agabka raaxada iibisa. Arnault waa 72 jir, labadii sano ee ugu dambeysay helay hanti 80% ka badan inta uu maanta haysto. Waxa uu dhaafay Mark Zuckerberg, Bill Gates, Elon Musk iyo Jeff Bezos waliba sanadkan oo qura. Arnault waxa uu noqday qofkii ugu horeeyay ee Yurubyaan ah ee noqdo qofka ugu hodonsan dunida qarnigan 21.